naxariisto sabir iimaan Allah naga wada siiyo ehel iyo qaraabo iyo asxaab iyo sukeey Soomaali oo dhan waa ugu tacsiyeynaa runtii geeri naxdin la bixid oo aad u xanuun badan maalintii isbitaalka la keenay ilaa maanta anaga hadii aan bahda dalsana aan u taagneen walaalkeen laakiin Ilaah naga jeclaysta shalay markii processkiisii dibadda loogu qaaday laga ka shaqeynayno baasaboorka isbitaalka soo joogo loo hagaajinay laakiin anaguna talaawadan Ilaah agtiisana tala kala tiis marka Ilaah uu naxariisto sabir iimaan Allah naga wada siiyo waxa oo gaar aan sheegayno ma jiraan walaalkeen kana furtoosa Allah geeyalena annagana waxa waay meeshaas waa loo wada socdaa ina u diyaar garowno oo Ilaahay kadaashiisana ma fidnayo saaxiibada iyo Soomaali weyn baa u qidmeynayne xanuunka la qaybsanayna annaga hadii aan bahda dalsan xanuunka si gaar ah oo noo taabanaya nin walaala naga tirsanaa qiimo lahaa oo runtii boos weyn noogu jiro booskaasna uma maleena cid noo buuxin karto inayna jirin inay jirto reerka uu ka baxayna ama qoyska iyo caruurta uu ka baxayna sidaas la mid ah gaar ahaan waxaan u tacsiyeenayaa baxda saxaafadda iyo ehelkii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday Axmed waxa uu ahaa run ahaan qof aad iyo aad u afgaaban oo laga nabadgalay afkiisa waxaan rabaa marka inaan si gaar ah aan ugu tacsiyeeno ehelkii iyo qaraabadii gaar ahaan xaaskiisii hooyadiis oo xilligan aanan halkan nala joogin iyo guud ahaan dadka markaasi isagoo ku xiranaa la socday intii xanuunkaasi uu hayay Axmed waxa uu xanuunsaday waqti kooban waxaan isbitaalka ku jiray waqti aad iyo aad u kooban oo ilaa 6-7 maalmood ah run ahaantiina waxa naga jeclaystay Ilaahay waxaan dhihi karnaa meel maanta meesha uu tagay meel kaga khayr roon oo tagi lahaa ma jirto awalan markii uu horeeyay soo qaybgalka iyo ujeedada aan sugu nimid oo aaska wiilkan Allah u naxariisto Axmed Xuseen Xaaji Cabdi Raage waxaan Ilaahay idinkiisa insha Allah rajeynaa ka soo qaybgalka iyo wadaaca bishii Ramadaan oo hadda lagu jiro maalmihii ugu dambeeyay in Ilaahay u naxariisto oo dambi dhaafo insha Allah taala marka xiga waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynaa dadka sida gaarka ah oo soo qamaqaabiyay oo u fududeeyay in aaska halkan uu ka dhaco oo ah idaacadda dalsan iyo bahda warbaahinta intii garab ku siisay xalay markii geeridiisa xilad dambe soo gaartana aad baa uga naxay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waligeena qalbigeyga iloobi doono wuxuu ah qof wanaagsan dabeecad wanaagsan kuwa qosla wax kasta hadii aad hata kuwa qosla marka waxaan rajeynayaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala jannadii firdaws uu ka waraabiyo qof walba oo soo wada shaqeysana in Ilaahay markaasi cafi u weydiiyaan Allah u naxariisto saaxiibkan Axmed Xuseen Cadow wuxuu ahaa saaxiib oo ahay aan soo wada shaqeynay muddo 3 sano nin igu dhiirigeli jiray oo shaqada marka aan soo qabto mar walba wuxuu dhigi jiray nin shaqo tahay saaxiib hore u soco ha u joojin wax walba marka saaxiibkan saaxiib aan iloobi karo ma ahan Axmed Cadow waa nin maskiina oo afgaaban idaacadda ninka ugu maskiisan oo afgaaban oo afkiisa idinkiisa laga nabad galo ahay marad dib badan saaxiib aan aad u wada jecelnahay Allah u naxariisto waxaan u tacsiyeenayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed bahda gaar ahaan bahda saxaafadda siiba qaraabada ehelada qaraabada inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ana Xuseen Raage Cadow Allah u naxariisto adeer labaadkiisaan ahay haddaan dumar iyo niswaad kala ahay ilaa salaada uu iga jabi lahaayaan islaayaha maahanay dhaliyadeen intaas isu jirtaa magaciisana ma aqaanin laakiin asalahan iyo dhalmadiisa iyo hooyada aabaha iyo abtiriskaan qeynay duqiisana waa ahayo xagga adduunyada intuu joogay odayaashiisa kamid ahay waxaan leeyahay marka inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaan leeyahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed ayaa uga tacsiyeynaya nin dhalinyaro oo ahay oo mutacallima oo rag mutacallimeena kula jira xayndaab marka ummadda kadib waxaan leeyahay qoyska awlaadiisu ay kamid tahay ayaan si qaas ah ugu tacsiyeynaya kadib saxaafadda Soomaaliyeed iyo midda islaamka nooc kasta ay tahaba kuwa ay maqlaaya oo garabka siinayo la sheegay inay qaadiba rabeen oo tikidkiisu oo go'nay asi Ilaahay oo ka gacan mariyay asiga awoodda iska leh iyo kuwa kale la jaarka ama Muqdisho joogaan ama caalamka meel kasta ka joogaan Soomaaliyeed ama muslimiinta aan leeyahay
samar iyo iimaan allah naga siiyo asigana qabriga allah u waasixiyo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun kullu nafsin daa'iqatul maut allah u naxariisto walaalkeena maxamed xuseen cadow waxaan marnaba la soo koobi karin oo aan aaminsanahay ammaantiisa qiimihiisa marka la eego Axmed waxaan isbaranaa aniga sanadkii 2011 intaan mihnada saxaafadda aan ku soo biirin oo hal meel aan ka soo wada baranay mihnada saxaafadda waxa uu ahaa qof afgaaban waxa uu ahaa qof degan waxa uu ahaa qof samafala ah waxa uu ahaa qof walba oo Soomaali ah ama Axmed xitaa maalin la sheekaysatay uu fahmi karaa qiimihii iqaayihii uu ku fadhiyay Axmed Allah inaga jeclaaday Allah u naxariistii janna Allah ugu waraabiyo sidoo kale waxaan uga tacsiyeenayaa ehelada iyo qaraabada iyo qoyskii xaaskii caruurtii uu ka baxay si gaar ah waxaan kaga tacsiyeenayaa bahdii ay shaqo wadaaga ahaayeen Dalsan Media Group waan leeyahay samir iimaan Allah idinka siiyo bedel khayr qabana Allah idin siiyaan leeyahay Axmedna aan iska cafino